warninka bilayska qoriga watow ma aabbahabaad xabad ku dhufani warninka bilayska qoriga watow ma walaashaabaad xabad ku dhufani warninka bilayska qoriga watow ma walaalkaabaad xabad ku dhufani Somaliland waxaa cirka isku shareeray muranka doorashooyinka waxaana soo baxay khilaaf weyn oo ka dhex taagan xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo xisbiga talada Somaliland haya ee kulmiye waxayna mucaaradka Somaliland qabanqaabinayaan banaanbax weyn oo ay ku sheegeen inay ku dalbanayaan in doorashada waqtigeeda lagu qabto waxaana banaanbaxaas ka hor yimid taliyaha ciidanka booliiska Somaliland General Dabagale oo sheegay inaysan aqbali doonin banaanbaxyo sharci darro ah oo aan soo marin wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha amniga waxa uu yiri taliya Dabagale habeenkii dhaweeyda u dambeysay ciidanka hodan hilis maray rasaas bi ku rideen ciidanku waxba muuqday maalintii fowdadu dhacday halkan ka dhacday fowdadu ka dhacday doorasho aan la ogolayn mucaarad aan calaamadihii xisbigiisa xataa sidan intay naga dhex tooseen oo la garan waayay maarigxiisa ama waxba ciidankii la socday ciidanka rasaas kala dhaceen iyaga la socday ciidanku marna waxba ku muuqday sidoo kale waxa uu taliya Dabagale eedeymo culus u jeediyay gudoomiyaha xisbiga wadani ninka lagu magacaabo Xirsi oo uu ku eedeeyay falal badan oo baalmarsan jiritaanka dawladnimada waxaana kamid ahaa hadaladiisii haddaba Xirsi waa kuba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka labadii imika saddex bilood u dambeeyay waa markii labaad ee xisbiga mucaaradkii marna go'aan 3-4 beej ka soo saaray ciidanka booliska uu ku ceebeynay imikana 7 beej buu gudoomiyaha xisbiga ka soo saaray ciidanka booliska ku ceebeynay haddaba gudoomiyaha xisbiga horta waa kuma waxaan doonayaa bal maanta si naloo kala saaro oo booliskana booskiisa la dhigo arrinta meesha taalana la ogaado inaan sharaxaad yar ka bixin horta Xirsi dawladdii tan ka horreysay kulmiye ragii ugu baawarka weynaa kamid ah wasiirka madaxtooyada ragii go'aamada ugu waaweyn gaari jiray baa anigu dawladdaanu ku wada jiray doorashadii 2008 xubnihii komishinka ayuu madax xigeenka uu iska casilay si doorashadaas ay khalkhal u gasho mar labaadkii isla tuutesan aadkii Xirsi wuxuu abuuray jabhad hubaysan baabuur boqorya saaray ciidan buu la baxay dawladdii daahir riyaal xilliga tirtii uu kooriyay wuxuu ciidanka boolisku soo qabtay isaga oo hawsha ku jira ayaa gacanta lagu soo dhigay oo la soo xiray dhinaca kalena xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa dhinacooda wada abaabul iyo diyaar garow ay isugu diyaarinayaan banaanbaxyo waaweyn oo ay kaga hor yimaadaan xisbiga talada Somaliland haya ee kulmiye waxaana kamid ah mas'uuliyiinta u hadlay mucaaradka Somaliland xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun warninka bilayska qoriga watow ma aabbahabaad xabad ku dhufani warninka bilayska qoriga watow ma walaashaabaad xabad ku dhufani warninka bilayska qoriga watow ma walaalkaabaad xabad ku dhufani waxa hadda jawaabayay taliyihii ciidanka bilayska shuruucda bilayska way ka reeban tahay taliye bilays oo gudoomiye xisbi mucaarada u jawaabay waxaanu ka cabsi qabnaa maanta Somaliland baynu nahay in maalmo dhow laga sheekeeyo dal Somaliland la oran jiray cirro hadduu maanta madaxweyne noqdo oo shacabku ay ka cawdaan waxa noloshooda taabanaya ay madaxweyne waxaan ma aqbalayno waa lagu mudaharaadaya wax maamulkan maanta joogun quseeyo maaha waa xuquuq dastuuriya madaxweyne aanu cidna haysan karin war cidii nabadgelyada ilaalin lahayd oo dawladdiya laga bariyaa nabadgelyada ilaaliya war jananadii baa siyaasiyiin noqdood arkaysaan war Somaliland ha kacdo si kastaba ha ahaatee waxaa xisbiyada mucaaradka Somaliland ka muuqata dheerayn iyo inay u ordayaan banaanbaxyo aysan ogeyn waxa ka dhalan kara waxayna ku banaanbaxayaan dawlad shacab ku doortay oo aan wali dhamaysan waqtigeedii sharciga ahaa sidoo kale lama qiyaasi karo waxa uu ku dhamaan karo khilaafkan siyaasadeed oo ah mid aan horay u soo marin Somaliland waxayna shacabka Somaliland ku baaqayaan in la dhowro dawladnimada intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan oo aan ku dulmaranay wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya daawada fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag